iskale dawladda Puntland waxaana la danaynayaa dawladda Puntland dalkiyo dadka waxa iskale dawladda Puntland ninkii diida wabarbaad ku daalaysa mudaharaadkan gilgilay degmada Boocame ee gobolka Sool iyo degmooyinka hoos yimaada ayaa shacabka iyo waxgaradka magaalooyinkaasi isugu soo baxeen mudaharaad balaaran oo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan duulaanka foosha xun ee ay dhulka Puntland ku soo duuleen maamulka taagta daran ee maleeshiyaadka gooni-goosatada ah toddobaadkan ayaa guud ahaan gobolka Sool waxaa ka socday mudaharaad loogu magac daray duufaanta buluuga taasoo lagaga soo horjeedo haysashada qaar kamid ah gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ay maamulka Hargeysa sheegato balse ah dhul Puntland ay leedahay dadweynaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa amaan iyo taageero u muujiyay ciidamada difaaca dawladda Puntland oo haatan xoreyn ka wada gobolka Sool ee Puntland shacabka deegaamadaasi ayaa waxay sheegeen in ay kalsooni weyn ku qabaan ayna jawaab cad ka bixin doonaan duulaanka foosha xun ee ay maleeshiyaadka jeegaantu ku soo qaadeen xuduudaha Puntland shacabkan banaanbaxayay ayaa dhamaantood sheegeen in ay maamulka Hargeysa isaga baxaan gobolada Puntland hadii kalena ay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo Soomaalidiidka ka soo jeeda galbeed ee muusabixi u talinayo iyagana rogay annagana nagu soo duulay waanu ka horjeednaa dooni mayno waxaanu doonaynaa dalka iyaga inuu nooga baxo hadday ka bixi waayaan oo degdeg uga bixi waayaan waxay heli doonaan waajibka ay doonayaan Soomaaliya way istaqaan dadkaana waa la yaqaan waa dadkii daraawiish ka haray dagaalku wuu fudud yahay muusabixi waxaan leeyahay muusabixi burca inoo muddaa burco ciidamada yada Puntland ee garabka iyo gaashaanka leela hoos taagan ee maxaa ku sheegay mujaahidiinta ee dalkooda xoreeyay ee wax ka tusay muusabixi tusay ee dumarkaas ay wada xiray baanu aad iyo aad ugu mahadnaqnaa garab iyo gaashaanna waanu la hoos taagan hadaanu haweenka nahay gacan baanu siinaynaa guulaystaanu idin leenahay dumarka halka ka hadlay oo Soomaaliya ka hadlayay oo yiri Cabdiwali waxa wuxuu cabay caana maraaci waxaan idin sheegayaa inuu Cabdiwali yahay gaas inuu yahay dalkiisa xoreysanaya oo maxaa ku sheegay nabadgelyada jecel oo aan maatada layn oo maatado ahayn ee gaas dalkiisa xoreynaya inuu yahay Cabdiwali idin sheegaynaa awr baanaana iyo qoon yar oo la iska bixin waayo belaayada haddaan laga hortan waa ka badata haddii muusabixi oo madaxiisu sidaa yahay oo uu murdugan yahay oo uusan sar lahayn oo aan miyir ku jirin isaaqow ninkaa iska qabta muusabixi waxaanu sheegayaa dhuluna lahayn buu ku dagaalamayaa wuxuu doonayaa daluna lahayn buu ku dhimanayaa waxaanu sheegayaa geesiyaasha reer Puntland inay ka kicinayaan maxay tukarraqiya ilaa laascanood waxa la geynayaa meesha la dhahoog gudoomiye ku-xigeenka degmada Boocame Axmed Cismaan Karaaf ayaa sheegay in dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay yihiin dad reer Puntland ay sanadal iyo dadba kala dhaxayn maamulka Soomaalidiidka waxaan joognaa degmada Boocame banaanbaxa kan waxaanu maanta u qabanay inaanu cadayno rabitaanka iyaga iyo wixii aanu ka soo horjeedno iyo waxaanan doonayn iyo mowqifka iyaga inaanu cadaynaan u qabanay banaanbaxa waxaanu cadaynaynaa haddaanu nahay degmada Boocame ama gobolka Sool inaanu nahay dad reer Puntland ah weligayana aanu ahayn ilaa maalintii la aasaasay ilaa al'aana inaanu nahay dad reer Puntland baanu cadaynaynaa waxaanu kaloo cadaynaynaa inaanu ka soo horjeedno dadka goosatada cudurka goosatada dadka sidiisa ah gudoomiyaha degmada Boocame ahna gudoomiyaha golaha deegaanka Xasan Xayle ayaa u mahadceliyay shacabweynaha reer Boocame sida ay uga dhiidhiyeen dhibka lagu hayo shacabka reer Sool dadka banaanbaxa soo abaabulay iyo intii ka shaqaysay iyo inta soo ajiibtay ee sida wanaagsan ee Soomaalidiidka dadkeena iyo dalkeena ku soo duulay loo